iskumaan ma nabad baa waa nabad magaciina maqal ee masiirkiinu waa maxay Soomaalo milgaheedii iyo masiirkeedii garato mugdigii ka hayaanto shaydaan maryooliyo munaafiqi iska naadho mustaqiinka ku taagan bay matasha iskumaan haye waraadna qoymayna walaaleegayigeenu mid weeye adna waa tii aan isku xiiqnay xalku waa federaal adigana maxay kula tahay dadka danaha Soomaal kala didinaya nicib allahayow daweeyo iskumaan ku daa'imi allahayow daweeyo iskumaan ku daa'imi adiguna xaqiiqdii dumarkeena xeerka way ku jiraan adna yaa akhiyow xaq ma laga dhunte xamar xundurtii dalka way haye adna xalaalkii ku dhaqmaa xilka waa u qalmaa adiguna haddaan xooga adkeeyno dalku waa xasilayaa adiguna inaan xoorna qabiilkoon qaran xeerinna way adna maxay kula tahay iskumaana arrinteedu waa maanta dalkeeda ixtiraamka dadkeeda wanaagay aragtaayo urin mayso xumaato saxaafadda ama suxufiyiinta Soomaaliyeed dhibka wadanka ka socda iyo burburka ma qayb bay ka yihiin mise way ka hortagaan iskumaanay bal arrinta ka jawaab aryaadaha murtida abwaaniintu dadweynaha Soomaaliyeed intay qalbigooda maashayso ay babaarkoora qurcad isu mari lahayd hadday suxufiyiintu saxaafadda ka sii day lahaayeen aaway waa ku kor fadhiyaan oo maxaa u diiday suxufiyiintu inay saxaafadda ka sii daayaan yaqayo waxa u diiday danahooda gaarka meesha ku jiro oo wixii 30 sano anaka fadhiidka naga dhigi oo wadankoodana haddana ay ku burburiyeen gacantooda waaya oo maxaa kamid ah barnaamijyadaas masaasaa ka dhaba waxaa kamid ah nin madaxweynihiisii uu doortay aflagaada yacay u jeedinaya oo ku faanaya mucaaradnimo aan ilaahay baralli ka ahayn isagoo ku afgobaadsanaya shacbigaan u danaynaya mucaaradnimada iyo dhaliishuba dimuqraadiyadda ayaa ogol suxufiyiinta reer galbeedkuna saxaafadda way ka sii daayaan dawladooduna way ku dhisan yihiin maxaynu kuweena ugu diidanahay inay tabiyaan xorriyadda madaxa bannaan ee saxaafadda ayaa qabto boow reer galbeedku hogaankooda inay dhaliyaan way ku saxan yihiin dawladahooduna way ku dhisnaanayaan boow laakiin inagu dhaliisha iyo mucaaradnimada hogaankeenna waynu ku dumaynaa arbowsa saxafiyiinteenuna inay saxaafadda ka sii daayaan ma ahan oo dawladdeena iyo dawladaha reer galbeedka miyaanay isku mid ahayn maya isku mid maahino qoon waliba waxbuu aaminsan yahay ilaahayna qoon waliba waxay aaminsan yihiin ayuu wax ku siiyaa kuna nooleeya walaadhe waa runtiisoo reer galbeedku waxay aaminsan yihiin sharciga ay dhigteen oo faraya ilmuhu inuu aabihii dhaliili karo dawladda ka dacweyn karo wuxuu ka bi'iyana sheegi karo sidoo kalena ay shacbigu madaxdooda dhaliili karaan laakiin innaga waxaynu aaminsan haddaynu Soomaalinahay caqiidada islaamka oo ina faraysa inaynu aabaheen iyo madaxdeennaba aynu ka qaadano waxa aan ka ahayn diinta islaamka ka baxay afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda ka jare suxufiyiinteenu waa inay saxaafadda ka sii daayaan wixii dalka iyo dadka dan u ah oo aan waxyeelo inagu keenaynin 30 sano afkooda warka ma ogtahay warka si adigu dhahdid leelo ka saar warkooda waxa iiga baxaybo dawladii heblow waxay tiri birig jaad ma la keeni karo dawladii heblow waxay tiri birig secret ma la keeni karo dawladii heblow waxay tiri diyaar ma imaahayso موبانة إيك دولة مكجران ويا وعسك بحيان إلا دولة دلهم إنها الضوضوبيا نينكو جابك لو قيلي صاحبه لكن وحن كورسنا خلت يا أسكال سنين منين ضدك صومالي أو ضياش مركيش يكونين وحيكونوا يا دولة آدم عد دولة أو عبد الله يوسف وكاس وحنا عاي دولة محمد وكاس دولة الشيخ دولة الشيخ شريف دولة عبد الله يوسف دولة فرماجو حكومة حسن على خير إيكالا قبرتي وكاس وركينا عاي واكنا ما مخلوشين يا وركعهم نعي وهكذا ولاد كان بكاني اسكماني إنان استعمال دولتي هبل ينان استعمال دولتنا كي خيرك يا شرفت نوغو جرتا دولتنا صحافة دائنا سحنان وصوصا مينا يسيق آذان صحافة دائنا سحنان وصوصا مينا يسيق آذان صحافة دائنا سحنان وصوصا مينا يسيق آذان حمدي mahad ilaahu aqbalay muhashadaydii midigtaan ku dhigay dawladdan biimaha u maray farxad ii milgowdiya libba minanka ii taalle mugdigii dadweynuhu ku jiray waa if maalinahe miirowday rajadii luntee moodku sii wadeeyey seexan waagii maatadu qabtiya meydhan siliciye wixii muruga lala ooyaya maara loo helay shaqaalihii muddada oo mana maanta waa
wabixi xaqoodii la meelaysan jiray magana loo dhiibiyey musuqmaasuqii laga xorow madowgu saarnaaye mar ma qaado roobkii wakhtiga dheer maqnaan jiray way wada magooleen dhirtii midabka cawlayde maaxbaaba laga dhuray dhulkay maalku ka dideene mudaahanadii laga reefigtiya madasha tuulaydi durba waa kan soo mudhay raggii miiganaan jiray murtiyahanadii lagu tuntiya toostay maansaduye kalamaanka ummadii ahayd waa mid keliyuuni jidkii maxamediin bay dhammaan wada marayaane miciisiga shisheeyana barraa layska maaniciye mar haddii la helay maamul iyo madax la aanaysto oo uu masiirkii shacbigu doorkan miciyaystay maansha alle sow nabadgelyo nololimay muuqan السلام عليكم أخياري وعليكم السلام ساكي محا عصب نبدا عصب يا برواقي هرومش نبد انت تالا بين لما الاسكشي حمر جد كستب دغ حلو gooye nabad intay taala ilaahay baaro ilaahay nabad ana siiyo warkii hore war soo dhaaf oo wax wanaagsan baa yimid ma ogtihiin wada kasta oo xamar ka baxda in kaamira saa loogu xiray luuq kasta isgoys kasta oo labadii wada taagan iska daayay cayayaanka dooliga jiirka quraanjada insan loo dheehanayo warkaas ma haysaan wallahi billahi ma badagna ad korma ko degna laakiin arinta soo bajarta doo faylanta wallahi ka farhay ilaahay bay loo faylanta aryaada dadka xaal loo sira dhagxahaan ogay walaxay celi waayeen miyaa kaamara celi kartaa been badanidiina masha Allah kaamira buguriyahno ilaalinaysa tuugna ma soo gali karo dool hadii mininkaaga soo galo ida arkeyso nafturkhayna siinay miyaa sheekad ajaa'ib waay kaamira ficnaan badana annagu haddaan nahay hooyooyinka kaamirada dan weyn noogu jirto sababtoo ah ilmihii iskuulaadka iyo dugsiga u goynay kaamiradan ka daawanaynaa maxay beerisu sheegay waryaarahe ma barefadsigii iyo dimuqraadiyadii baad meel uga dhacaysaan wiilashayga gabdhaha sheekaysanaya rabtaa inaad daawataan cid waliba inaad aragtaan baad doonaysaan waxaan waxa weeye soomaalidu mucod baa laga qaaday arrintaa ma arti baa la geliyey see u dhici kartaa arrintaa nin kasta oo horta khashkhashaad rabo waxaa lagu xadgudbi dimuqraadiya lagu xadgudbi layska soo bilaabo ad meey ka timid adi hadda america marka imaanino meey ka timid waayaala waa layska arkooya xagga bee kaas wax ma ka sheegaysa kaina wax ka sheegay miya kan wax kala lagu fiirinoya raalaho nabadaartaa a lagu ilaalinoya waa kaa diidi sheekadaas meey ka timidbo waa layska arkayay anakaana cariirinaya miya marka oo hadda waxaad leedahay sidaan amni baa ku saxmaya miya maxaa jira maya wixii amnigaa waa raacayaa dee laakiin waxaan isiri ama barefadsigu gacanta ka baxaayo dee halkaa adoo taagan habeen walba dhakadaada lasoo sawiraa laakiin hadduu amni yahay ar wixii amni anigu waa ما يسكر عني اسكرني لكن مد اوغاده إنك وحاني لقربا وحي أركتين إنا بوليسك وشيكتين هدي وح إذنك شيء ويسان وحي ملو شيء ممكن عسكرت قتل ماما وحي أركتين أو حافظ كعصب أو لوقيال كعصب أو لامي كعصب وراد أنت نقصو سلامتي على الله تاسوا أنا واسو شيء haddaad maada suluugto adigoo aan murmaynin dadku waa isku maan oo isku mowqifna weeyo madasha ka dhaxaysiya miiska dooda u taalle adigoo aan masuugin oo mirif ciil isla siinin ha munaafaqadayna bal markaa ka jeedi